dhaho Puntland ha noolaa laakiin haddii aan maanta aan dhaho aan sidii aan ku dabargoolina falkeed haddaan galo dee waxaas wax soconaya ma aha heerna ma gaarina shanta Soomaali war idinka isku helin karo Jubbaland iyo Galmudug ka hadal Jubbaland iyo Galmudug aad iyo aad waa taageeraya war ana xari xeef waa taageersanahay xeef aan noolaado Axmedowna waa taageersanahay farmaajona waa taageersanahay madaxweynaheena alla yaa cizag daliilo badan waa jiraan daliilo badan oo aniga aan farmaajo aan ka tabanayo waa jiraan laakiin de still madaxweynaheygii waan taageerayaa farmaajo aan noolaadaan leeyahay aniga ma necbani xeefna waa nin rage xeef waa nin rage laakiin xeef waxaan aad iyo aad aan u jeclaan lahaa isagana inuu maartay shacabka Galmudug marka hore uu mideeyo ninka marka uu gurigiisa maartay uu ka soo baxo ayuu dariskii u gudbi karaa Soomaa marka waxaan leeyahay xeef waa nin fiican waa nin wadani ah wallahi intaan ka arkay aad iyo aad waan taageersanahay Axmedoobe khalado badan oo soo biyay jiraan laakiin Axmedoobe waa ninkii maanta u soo halgamay wadankii Jubbaland u soo halgamay maartay maamul goboleedka Jubbaland dhisay waxyaalo badan buu qabtay waxyaalo badan oo wali uu soo qaban way jiraan laakiin waxaan rajeynayaa in lagu celiyo oo asaga uu soo baxo oo mar kale waa maartay arinta aan wali uu soo dhameenin uu dhameeyo dayactiran waa inuu dhameeyo way sida bu'aaliya dhinacaasi markii loo gudbo meelo badan baa dayactiran laakiin arinta Axmedoobe waan ku cambaareynayaa laakiin Axmedoobe wax dhaama ma laha run rabtaan Axmedoobe wax dhaama ma laha nimayo caadi iska dhiga Djibouti Djibouti shacabka Djibouti aad baa idin salaamayaa reer Djibouti baa jooga reer Djibouti waa loolimiya alla yaa cizag maxay waxa jirtay wali aan soo bixin aan dhahayo meeshii joogto maxay meeshii joogto Djibouti hunoy jawigii macana Djibouti hunoy way baxa qoray abwaan ku qoray muxuu ahaa abwaan arrin baa qoray alla yaa cizag aad baan ku salaamay abwaan arrin yaa jooga horta meeshan abwaaninta raggeeda madaxda waxaan u jeedaa abwaan Cabdimudalib Ciise Saalax baan u jeedaa alxamiistiye abwaanka alla yaa cizag aad baan ku salaamay boqorow aad baan ku salaamay Landheere waa abwaan shanta Soomaaliyeed dhamaantiin aad baan idin salaamayna marka Djibouti siyaasadeeda ma caawa siyaasad baan ka hadlaynaa ma shanta Soomaaliyeed rabna caawina mideen insha Allah dilaa karaan noqdo arrintan waxay ku imaatay fariin laga soo diray dhinacaas iyo madaxtooyada dhalinyarada ku nool xamar qaraxyo badan baa hadda la soo abaabulaa jiro oo loogu talagalay in dhalinyaradaas lagu dhameeyo marka dhalinyaradii waxaan lahayn is-ilaaliya Soomaa marka ciyaar xamar aad iyo aad is-ilaaliya Djibouti aan gudubno Djibouti aan ka sheekeeyo Djibouti ninka haysto wax badan buu haystay madaxweynaha Djibouti nin xun ma aha nin fiican weeye laakiin horumarka Djibouti dib uga dhacay horumarkeeda dib uga dhacay Djibouti waxaa la rabay waa maartay dhaqaalaha Djibouti soo galo iyo maanta heerka shacabka Djibouti iyo wadanka meeshu marayo aad iyo aad buu uga liitaa dad waxa jira waxaas ka hadlin iyo waraan qof aan ka baqan malaha ilaahay baan ka baqanimayo waraan qof biilka iga dhiibo malaha guriga korontada qof iga dhiibo malaha aniga waxa dad ugu jirta shanta Soomaali oo horumar gaarto Somaliland Puntland NFD everybody ma ogaadeenay in horumar gaarto ay dan ugu jirto aniga in la midoobo dan ugu jirto qof aan ka baqay malaha madaxweynaha Djibouti heesto wuu sidii laga rabay wuu ka dib dhacay waa aad buu u gaabiyaa lacagta uu ku fadhiyo shacabka Djibouti lacagta uu maanta asaga ku fadhiyo wallahi soo dhaar ma shacabka Djibouti lacagta uu ku fadhiyo maanta shacabka Djibouti hadii la dhaho 1 milyan baa qofka la siinay reer Djibouti oo dollar waa 1 milyan oo dollar wallahi oo billaah oo talaba ka soo hareysa lacagta uu ku fadhiyo waa madaxweynaha Djibouti saaso ay tahayna Djibouti maanta tagto wallahi hadda Djibouti tagto waxa laga yaabaa meelo badan oo koronto lahayn meelo badan oo waxa jira aan qaboojiye lahayn waxyaalo badan wallahi arrin xun waay aad waana fahmi karaa aniga shacabka Djibouti idinka ayaa meesha joogo anaga media iyo waxaan waan ka hadli karnaa oo de waan iska hadlaa laakiin doesn't make sense waxa wax tari karo shacabka Djibouti idinka ayaa fadhiga inay ka kacdaan rabaan dad wax bartaatiin come on Afrika dilla maanta shacabka Djibouti jooga ayaa waxbarashadu ay sareysaa dad wax barta weey marka idinka kaca mudaharaada malihi aniga dawladdiina weerara malihin alxamdulillah dawladda haysataan dawladdeedu weey aad baan ugu faraxsanahay laakiin waa in aad kacdaan weey oo mudaharaadaan
oo aad maarata xaqa ka hadashaan oo madaxweynaha aad ku dhiirigelisaan inuu horumar uu wadanka u gaarsiiyo laakiin mid kasii sareysa lacagta uu ku fadhiyo dekada kale lacagta kasoo gashaa wallahi wax maalin aan la ii sheegay waa macquul ma aha lacagta intee gashaa yuu siiyaa dowladaha oo galbeed miyuu siiyaa ma faransiisku siiyaa ma maraykanku siiyaa yuu siiyaa ani garan waaye lacagta Djibouti madaxweynaha yuu siiyaa war tukaan ma furan karti Djibouti tukaan wallahi waa dhaar tukaan marka daarto inaad tukaan furato waa inaad madaxweynaha la soo ogeysiiyo waay oo madaxweyne tukaan soo furanayo aniga hadda Djibouti ma tigi karo show kuma qaban karo ilaa madaxweynaha Djibouti inta u tago aan dhaho madaxweyne saasanahay show aan qabsanaya war maxay tahay 1964 gumaysiga miya Nelson Mandela gumaysi uu ka hadlayo miya ku nooshin wartad wax bartaatiin Djibouti oo ilaahay ka cabsada nimayo mudaharaada fadhiga ka kaca madaxweynahan ani malihi weerar dowladda dumiya malihi laakiin u sheega dowladdan waxa weeye waa in meel walba koronto ay dhigtaa meel walba shacabka hormarisaa gumaysigan iyo xasuuqan iyo shacabkan hoosta laga feerayo ruuxa ilaahay ka cabsada nimayo ummadda shacabka Djibouti shanta Soomaali bay ka mid tahay faraha xasuuq qarsoon shacabka Djibouti ku heesaan ka joojiye dowladdan la hadlaya dowladda Djibouti ilaahay ka cabsada runta laga hadlo shanta Soomaali idinkana walaaladiin hal garab istaago Somaliland sidoo kale Somaliland aad baan u jeclahay shanta Soomaali bay ka mid tahay Somaliland waa dad wadani ah wallahi billaah wa taala waa dad reer magaal ah hataa shacabka reer Somaliland wadadaan jecelnahay aniga ciyaal xamar hadaan ahay ama ciyaal Jubbaland mise ciyaal NFD aad baan aniga shacabka reer Somaliland u taageeraya wadadaan jeclahay waa walaaladay ha noolaadaan baan leenahay Allah ya cizay maxaa ku soo haray Jubbaland waxa weeye aniga Axmedow waan taageersanahay Axmedow inuu soo noqdaan rabaa dadka doorashada galayana waan soo dhaweynayaa asaga la tartamayo dad xun ma aha laakiin waxa weeye madaxda la tartamaysa hadallada ay ku hadlayaan qaarkood aad iyo aad baan aniga uga xanaaqay sida adeerkay Cabdinaasir Seeraar aad iyo aad baan hadallada uu ku hadlayo iyo ciidankan iyo koos iyo saalci baari karaa iyo meesha dowladda Cabdinaasir Seeraar oo ilaahay ka cabsaniyo adeerkay baa tahay qof ii ka xiga ma laha waa lagu baari ma waa lagu dhawaan dhabi meesha dowlad baa ka jirto dowladda sharci baa leedahay waa lagu baaraya miyaad madaxweyne tahay mise waxaa leedahay qabiil hebel baan ka dhashay war ilaahay ka cabso waxa Soomaali halkan dhiga maanta waa kibirkii isla weyninka adoo ilaahay ka cabsan kuleeyahay ilaahay ka cabso wadanka Jubbaland waa wadankaadii waxaa la rabaa inaad shacabkaadi adiga aad noqoto hormug u noqoto oo aniga aan kugu daysado laakiin maaha aniga inaan kugu daysado on ma ciidan baan suubsanay weel baan weerari waa la isbaranay maxaa la isbaranayaa ka adaya laba jirka uga adkeed adar ilaahay ka cabsaniyo ilaahay ka cabso markaad dhimato camalkaada godka la gelaysaa qabiil kulama gelayso shanta Soomaali horumarkooda ka fikir shacabka Jubbaland horumarkooda ka fikir Axmed Madoobe meesha doorasho soo socoto Axmed wax badan buu qabtay Allah ya cizig baan leeyahay hadii doorashada maanta la gala lagu guuleystana thank you baan leenahay madaxweyne hadii guuleystana waxa leenahay welcome back madaxweyne dadka la galay dad badan ba la galay sida wasiir Umar yaa kale Cabdinaasir Seeraar doorashadu ku jira Soomaali Jubbaland taamahu ka gudub waxa kale marshay mu aha صحيح اوكي عبد الرزاق علي يوسف صحيح buu dhahay okay adeerkii marshay uu ku jira yaa kale qof kale xidigo ku jira Soomaa yaa kale ku jiro السلام عليكم الله يعزك صالح بن أحمد أنا شنطة الصومالي بانا قبيل كده دارتنا شنطة الصومالي بانا هاي شنطة الصومالي بانا كفانا قبيل رحمة ترى أنا در إلهي كعفسو بالرمضان بالوجرة عبد الناصر السيرار ومدحوينها عصب ما ومدي الدنيا انا ومدي الدنيا ما هو عبد الناصر السيرار طبعا ادرك اللحم ومدي الدنيا نادر هدي اسو ما انت دورشو ka qayb galo oo ku guuleysto waan u sacbinayaa sida Axmed Madoobe ana u sacbiyay umadi diinay aniga inaadeer umadi diinay mana ku xumi laakiin waxaan diidayaa calaashan hadallada maartay qofka dumar uu yahay qof madaxdu yahay hadalladiisa inuu ka fiirsado waxyaalan ciidan baan wadanay waan weerari meeshan wax weerar ma jiro meeshan waxaan waagi meeshan waa ba jiro lisweerar jira hada weerar ma jiro meesha waa qalin iyo maartay iyo hadal fiican marka aad iyo aad Cabdiqaadir Bonka Maygaag aad baan ku salaamayaa Axmed
xageed ku artay inaad xageed ku artay axmedow asagoo dhirta dhoofina xageed ku artay miyaada soonneen mise propagandihii iyo beentii facebook la dhex waday baa inaad adigana qaadatay ilaahay ka cabsada waxa indhiina qofkaas waa necbahay iyo qabiilkiisaa necbahay iyo horta kala saara horta qofka haddii aad necab tahay waa wax la garto haddaa qabiilkiis necab tahayna wax la garto laakiin ma aha inaad qofka aad wixii aad maqashay aad ku caayda maaha ilaahay ka cabso shanta soomaali way siman tahay waxaan aad qabiilada caayaysan war qabiil wuxuu ii tira ma laha aniga niyo aniga saaxiibkay wiilka ama gabadha soomaaliyeed ama wiilka soomaaliyeed aniga aan weel wax ku wada cunno aniga kuwaasaa walaalada kuwaasaa aniga isku qabiil nahay kuwaasaa isku calan nahay kuwaasaa aniga isku wadan nahay laakiin qof qabiil brother qabiil qof kaleeto ku necab ama uga soo horjeedo dee taas adigaa lagu dhahaa adiga yaa maskaxdaada wey waa laakiin waxaad ogaataa adduunka waa la hormaray maanta yaa kuu taliyo ethoobiyan baa kuu taliyo sankadhuudhi baa kuu taliyo dowlada carabaha hoos tagtaa u sujuudaa maxaa keena waxaas waay because qabiilka iyo naceebka lagugu beeray wey ma walaalkaa jeclaatid walaalka ma jeclaatay ani hadda maanta adiga ku naco heer ma gaaraya yaa ii hilinaya beri aniga qof ii hilinaya malaha soo maha war ilaahay ka cabsada shanta soomaali way wada dhalatay waa dad walaale waa in maaragtay laisjeclaado laistaageero taas waa khasab aad iyo aad maxaa kaloo soo haray maxaa kalooto ka hadleen okay arrintan gobolka banaadir waxyaalahan qaraxan iyo waxaan la soo maleegay hadda lagu howli jiray in la suubiyo dhalinyarada soomaaliyeed ee ku nool gaar ahaan ciyaal xamar waxaa la is ilaaliya meelaha la tago ee publiga bal iska ilaaliya aad iyo aad dadka ku jiro magacyadooda waa kuwan waa liisoo gudbiyey aad iyo dad aan afar iyo tobanka qof ee liisoo gudbiyey magacooda qaraxan soo abaabulay waxaa kamid duqa magaalada engineer yariso waxaa kaloo kamid caliyare inta kaleeta ma garanayo caliyare waan garanaya iyo duqa magaalada inta kaleeta ma garanayo marka idinkan waxaa la is ilaaliya aad iyo aad baan idin salaamaya shanta soomaali annagaa isla dhalanay annaga ayaa walaale halkaas waxaan ku weydiinaa dowladda mucaarad miku ihi farmaajo waa adeerkay mucaarad kuma ihi laakiin waan dhaliilayaa waxyaalaha uu suub ani waxaan rabaa farmaajo sidii marka aan dooranay campaignka ku jirnay hadda ninka laleeyahay qaraxu soo maleeyay laleeyahay dhalinyarada ku jiro caliyar isku campaign baan campaignka waxaan ku jirnay adeerkan baan ku jirnay farmaajo nin wadani buu ahaa haddana waa artaa waxaa loo suubinaya wuxuu dabargoonayo waa ciyaal xamar maxaa kalete ka rogo laba saar farmaajo aniga ma necbanayo farmaajo waa nin aan aad iyo aad waad ogtiin idinkaba dhibkan usoo maray halkan facebook weliba facebookan maanta dadka ku jira dadkii hore ku jiray waad xasuustaan baan u malayaa waa campaignki habeenii maalin baan live markaan sii saaxanayn live baan soo geli jiray markaan soo kacayna live baan sii geli wallahi billahi qabiil layga ma ahan wallahi waxaan u taagay calaashan shanta soomaali inay guuleysataan rabaa farmaajo waa madaxweynaheena respect iyo xushmad buu naga mudan yahay laakiin de waan calaashan waxyaalo khaldan u suubiyan baan naga soo horjeednaa waxaasna insha allah wuu sixi doonaa wax dhib ma laha laakiin sidee marka anaga ku saxan anaga fanaaniinta haddaan abwaaniintii aad iyo aad baan u salaamaya aftaax jarmal fanaanka shanta soomaaliyeed aad baan kuu salaamayaa legend boqorka dhaantada aftaax jarmal canada waagi horta nairobi joogtaa canada joogtaa dad badan hadda inaad nairobi joogta umalayaan moogtahay aad iyo aad cali mucaarad ma inaadeer dowladeeda waan jeclahay inaadeer dowladeeda waan jeclahay qof walba madax walba soomaalida shanta soomaali madaxdooda waan jeclahay madaxweynaha ogaadeynaya hadda soomaali galbeed magaciisii muxuu aha cagjar waan jeclahay everybody aan jeclahay somaliland madaxweynaha sidoo kaleeto dhammaan jabuuti kulligood waan jeclahay inaadeer mana ani qof aan necbaa ma jira midda kaleeta kulli isku wada dar kulli aniga waxaa aaminsanahay kulli feeri kulli isku wada shanta soomaali madaxweynahooda aniga farmaajo yaan aaminsanahay wallahi because waa xamar waa maxaa weye xuduntii shanta soomaali taas waa ciyaal xamar haddaan anaga mar walba aan shanta soomaali xamar haddaad tagto calanka buluuga babanayo ya 9 milyan oo wiil oo wadani baa iga dhashay bay kuleeyihiin waa wadani goorma imaanaysaa xamar waa imaanaya insha allah waa imaanaya ayuub aad baan kuu salaamay kaasin ayaan maxamed waxay ku leedahay ilka casamiya ahaa igu sabir dowladda waa taageersanahay alla yacza aad baan kuu salaamaya kaasin aad baan kuu salaamaya samsam daya fifa cagjar baba inkaas waa maalin madaxweynaha ogaadeynaya aad baan u salaamaya isagana
khalado uu suubiye waa jiraan madaxweyne qofka bini aadanka khalad waa ka dhacaa khalado badan uu suubiye waa jiraan sidaan u malaynaya maaha maalmihi horta orod buu nagu soo galay haddana xoogaa uu gaabiyey aad baan kugu salaamaya madaxweyne laakiin howl fiican baad haysaa waxaad shanta Soomaali laakiin inaad midaysaan rabaa sida farmaajo adiga everybody madaxweynaha Somaliland kulli isku wada dar madaxweynaha Djibouti waxaan rabaa shanta Soomaali idinkiina isku imaataan madaxdiina waa ugu iskuma imaanaysaan anaaba ogbo kulligiin waa sixrantiin وسعرنتي مدول بمل بو حرايا كان عربو هوس تغايا توكسنا بورسو وتا كان فرانسيسكو تغايا بورسو وتا كان ايثيوبيان يقشني بلاي halkaas waa ogahay inaan isku imaanin ba ogahay laakiin way dardaran weey wana caruurteeda ani waxaan rabaa inay markay weynaadaan ku faanaan meel markay tagaan yaatiin Soomaali markii la dhaho respect calaashan Soomaali waa dad fiican in la dhahan rabaa oo salaan loo taago laftigeela bad aad iyo aad dhamaantiin wallahi waa idin salaamaya dad badan ba inta ku jiro baydhaba Allah يعزك baydhaba aad ya madaxweynaha baydhaba subxaan lafta garan aad baan u salaamaya baydhaba waa dad aad iyo aad u fiican when are you coming back to Siyaara Cabdi Fattaax Saalax kaasan waxaan joogaa Siyaaro hadda Beeriyan baan joogaa xaafadda Beeriyan baan joogaa Siyaaro ku soo noqday Jarmalka waa ka soo noqday laakiin